naftooda iyo maalkoodana bannaanka soo dhigay oo soo bixiyey oo waxa weeye cadowga fooda daray ayaan u hambalyaynaynaa oon bogaadinaynaa oo waxa weeye aan u tahniyadaynaynaa meel kastoo ay joogaan khaasatan kheerkii ugu dambeeyey ee walaalkii iga horreeyana uu sheegayey qabiilka reerka la yidhaha warsangeli oo ka tirsan beesha harti abgaal waxa weeye maxaa la yidhahdaa oo maalin dhoweyto runtii muujiyey raganimada iyo ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa difaaceeda inay naf iyo nafiis ku bixiyaan bannaanka la yimiday waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ajirkiina ha weyneeyo ilaahayna habaad iyo sugnaan ha idin siiyo ilaahayna kuwii maalinta qiyaamo ugu shafeeco dhiiggiina ilaahay idinkaga dhigo kuwii nabigu sheegay sal lla ly slam oo diinta lagu kor yeelana allah idinka dhigo subxaana wa tacaala waxa weeye dhaawicina allah ha bogsiiyo wixii naga shahiidana shahaadadooda allah aqbalo haddii bay wax shahiideen dhinaca kalena waxaan leeyahay nimanka murtadiinta ah iyo gaalada la socoto haddaad islahaydeen shareecadan iyo kitaabkan al-shabaabaa iska leh oo laga dumiha oo al-shabaab haddii lala dagaalamo oo al-shabaab meesha laga bixiyo diintaani waa dumaysaa kitaabkaani waa dumaysaan waa dumaysaa waa baaba'aysaa waxaanu leenahay muutuu bikaydikum caradiina ku dhintay maanta waxa weeye waxaa difaacanaya diinta ilaahay subxaana wa tacaala qabaa'ilkii soomaalida difaacanaya dadkii muslimiinta ayaa difaacanaya iyagiyaa u taagan wiilashooda iyo maxay gabdhahoodii iyo waxa weeye hooyooyinkii iyo aabbayaalkaa u taagan waxay muujinayaan oy caddaynayaan wixii uu soo abaabulay xasan sheekh iyo kooxdiisu ay soo abaabuleen waxa weeye inay ka dhigaan hal bacaad lagu lisay ayna muujiyaan oy dabaqaan qowlka ilaahay subxaanahu wa tacaala laa tajidu qowman yu'minuuna biاllahi walyowmi alaakhir yuwaadduuna man xaadda allaha warasuulah walow kaanuu aabaa'ahum aw abnaa'ahum aw ikhwaanahum ilaa aakhir aaya nimanka walaalaheen warsangeli nimanka ila dagaalayana ku soo duulay oo 20 iyo xoogaaga ay ka dileen waxa weeye maxaa lahaa intaasna ay ka dhaawaceen sodomeeyada kontomeeyada ay ka dhaawaceen waa ayo waa wiilashoodii waay ma aha dad meel kale ka yimid maaha ugandheska burundiga xitaa maaha waana la soo hormariyey markay isbarbar dhigeen shareecada ilaahay subxaana wa tacaala kitaabka ilaahay sunnadii nabiga sal alla alay wasalam iyo wiilashoodii markay isbarbar dhigeen yay hormariyeen kitaabka ilaahay hormariyeen sunnada nabiga hormariyeen wiilashoodii waa laayeen sababtu maxay tahay diinta ilaahay ka hor yimideen shareecada ilaahay ka yimideen yay ku dayanayaan waxay ku dayanayaan nabi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh abubakar cumar cuthmaan raggaasi ku daya waa ogtay waaqacadii bader dadka ilaahay ku soo dejiyey haadaani khasmaani ikhtasamuu fii rabbihim waa ayo hum alquraysh waa laba quraysha marka halkan cutbe iyo odayga kale iyo ka istaageen halkan cali iyo xamse iyo halkan ay ka istaageen maxay isu ahaayeen qaraaba ahaayeen quraysh ahaayeen laakiin maxaa lagu kala tegey diinaa lagu kala tegey maantana warsangeli meeshii istaageen kuwa kalena qabaa'il kalena barta meeshaas ay karjeelina marka gaaloy iyo murtadiin haddaad islahdeen diintan shabaaba iska leh ogaada shabaab diintan waxa weeye wiilasheeda uu ka mid yahay waxa weeye dad kale uu ka mid yahay laakiin dadkan iyo al-shabaab waa ka badan yihiin al-shabaab waa ka badan yihiin waxa weeye maxaa ummadda muslimiinta oo dhanaa wada leh khaasatan ummaddan soomaaliyeed aragtaan gaalada tor saartaana iska leh iyadana difaacanaysa haddana difaacatay inta dambana difaaca doonta insha allahu tacaala marka waxaan ku leeyahay caradiina ku dhintay intay goortahay sidii culimmadu kugu baaqeen ilaahay u tooba keena subxaana wa tacaala culamaa usuu wallaahi waa idin hodayaan waxa weeye boholay idin qodaayaan aakhira beel iyo adduun beel ay idin wadaan waxaan leenahay yaysan idin sirin ka soo noqdo culimmada walaalihiina ee rabbaaniyiinta aan ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa adduunya ku dhaafsanayn kuwaasaa xaqa runta idin sheegay waxaan leenahay waxa weeye murtadiinay iska soo laabta diinta dadkeeda waa aragteen xabadda ka soo dhacay xanuunkeeda waa aragteen waxaan leeyahay ka soo noqda waxaad ku jirtaan dadkii la siray soo maahan culimmada caddaysa toobad waa furanta innaguna ma diidi karno muslimiintuna ma diidayaan cidda ilaahay usoo noqoto tooba keenta waxa weeye toobada ilaahay waa furanta ilaa naftu halkan timaado ama qoraxda ay ka soo baxdo dhinaca ay u dhacdo ay ka soo baxdo dhinaca ay u dhacdo
ay ka soo baxay intuu dhahay tooba waa furanta marka waxaan leenahay tooba keena oo soo noqda ayaanu leenahay culammadan idin bayaasisay toobad idin furanta akhiiran waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo marka shirkii insha allahu tacaala 4 maalmood noo soo socday intaan aad noo soo adkeysanayseen waxaan leenahay jazaakum allahu khayran waa noo xeraya isagana biidni illah